aabbahay loogu yeeray waxaa waaye inaan in sheegna oon in codsanna oon in barina Dr. Xasan ay cid ku tashatay inay nala dhistiin intaas kala xawaay wax kale oo la leeyahay malaha taladayni waa soo dhamaysanay reebahayn codsiga maanta uu dambeeyay in soo gudbinayna waxa waaye dhakhtarkan ku soo tashanay inay dhakhtarka nala dhistiin dhakhtarkan hadda wax ceeban ku ogna malaha waa bil aadan inta meel oo dawladda Kenya iska soo qabtay hay'adda ugu sarreysa iska shaqeeyay waxay ahayd NHIF hay'adda caymiska caafimaadka magacaas ugu soo tagay Kenya magacaas ku leeyahay tii shakhsi ahaan ganacsigiis iyo waddanka Kenya sumcadaas ku leeyahay qof walba waa og professionkiisa dhakhtarnimada oo gynecologist meesha ugu weyn iska gaaray wax ceeb hadda aan ku ogna malaha waa bil aadan laakiin ninkii la dooran lahay oo loo dhiibi lahay waati intiin fadhin maalin kasta waxaan dhahaynay aayadda quraanka maxay leedahay xafiidun caliim qawiyun amiin nin tabarteeda leh oo aamin ah nin cilmi leh oo qaban kara wixii dhan waa kulmiya asaga marka talow cid raabiin dhakhtarkay ku soo tashatay fadhigaan inta kale laga leeyahay waxa waaye waan iimaadi doonaa shakhsi reer guri waan codsan doonaa raabayn abkay digoodii waxaan idin kaga baahanahay caawimaad googashaan maanta waxa iska leh Dr. Xasan ugaasi wadarkaysiin suldaankan wadarkaysiin ugaaska waxa xanuunsanay mid shaqo loo diray Nairobi anaga maqan inta kale waa ku joognaa qabiil waxa la dhahay macaankiisa la kulmiyaa moogii magiskiisa lama kulmiy macaaga cid waatan waxaan rabnaa reer abayno duldalada badan waa jiraan inaad wax nala qabataan doctor nala dhistaan xaq darro shaqaynimi xaqa shaqayna tolka inaad wax la qabatiin doctor nala dhistaan aad qofka gardaran aad qabataan sinu sheegay ilmo nimanka dheereen oo dhalnaa raadiye kursiga nala doontaan aad waxa baas kaleediin waa Kenya aad doontiin ilma adeerta waa in ku kalsoonahay wixii jira oo cid dhexdeeda ka jirana waa inta la idin sheega madaxdiina waa wada joogtaa intaad waxa dheer markaad ugaasiya u jeedin oo odayaalku u jeedin cid madaxay leedahay madaxda cid Dr. Xasan ay dhis xasan wiili Dr. Xasan aad gacanta haya Faadimi Ibrahim Dr. Xasan ay la jirtaa Rashid Qaasim waa la jiraa Ismaaciil oo Canada duje iftika waa la jiraa Ahmed Baashana maana dhow ma geelay indoos galeynay waa nala joogi tolka madaxdiisina intay soo jirtaa حقه وحاوي نك لسوق هذا نختارك ماشى اللي جاي شلون فاتح هذا الأمر اللي سوالي أصغبيل كرابين فاي واحد جري اللي شاك تقولي يسرى سر مركب عرب نختارك لسوق هذا وندرا دستان أغل والبي قوس والبي جروب لون واتجينا طبعا دونا والمغليسين عدين تربع سمرتي نك هذا وقد بي الذين شيء وعنو دونينا إن نلصه ودكتور حسن نلص وإحنا قلقبته مثال كيس ayaan rabnaa iri kabiir 80 maahin waxaan ku leeyahay boqolkiiba boqol waa Dr. Xasan markay sida tahay warka aniga badin maayo waxaan ugu yeeranay in Maxamed Dr. Xasan adla listiin Dr. Xasan waxaan soo jaqwaysanay bixi story Abdullah Dhimay waxaan soo jaqwaysanay inaad wajiir isbedel ka subin kar aanu malaynay dad badan ay hayeen sidii Abdullah ilin sheega jirta waa kala bedelay asagan ka soo rabnaa beeshii aad u yeerateen raabihiin way idin soo dhaweynaysaa gooshana waa idin furan tahay suldaamadana waa ixtiraameynaa maxaa yeelay wax intaas oo looga soo dhaxbixi waa inay karaamo iyo sharaf leeyihiin waay marka goosh waa idin filan tahay waan idin soo dhaweynaynaa ninkaad wadatiin annaga horta ka qoos aan wax dhankay dogoodii wataan waa ku qasbanahay
ninkay dagoodii wataan waa shukran calaa waajib maanta haddayna dhihi lahayn ree aabbahayn ninkaanan isku soo raacnay tigmasin leen annaga abkay fahay iyo ogaasiinta ay soo qaatay ana ninkaas baanur kuriida ku dhaca oo dhisa war lamana badi wargeed waa gaabay waxaad fahay soo qaaday oo ogaasiinta soo qaatay waa ku qasbi saasay nabadgelyo horta gogoshaan waxaa la yidhi afkii dhaban waa kala run badihiin allah afkii dhaban waxaa run badan dhabankaa run badan gogoshaan waxay u eg tahay gogol macquul oo maskaxda ka degtay gogoshaan aniga waxay yeelatay gogol dhedhamaysta waxaa lagu yeeray ama fadhi lagu yeero wax cunumiin kuula yereeg aa jirta si hortay balaga yar dhawaaji codsigiinna waa maqalni yacnii waana soo dhowaynaynaa sharafta loo meesha iskugu imaaday khaas ahaan ciddii noo yeertay reer aabow annagu ciddii reer masar meeshaan inta soo fadhiisatay waa is waraysanay aad iyo aad hadalkaan u jeedin waa hadal runne waa hadalka hore ka bedelan annaga waxaan isku raacsannahay haddaan afkii soo dhoweyna beesha inta meeshaan ka soo gashay waa idin qaadnay gacan nafiya baa idinku qaadnay qalbiga baa idinku qaadnay waad soo dhowaanaysiin waa idin qaadnay insha allahu tacaala anigoo ku hadlaa beesha habkay masar inta meeshaan ka soo fadhiistay xasan waa nin maan naqaana aabbihiisaan naqaanaa walaalihiisaan naqaanaa asaga naftinkiisaan naqaana inkastoo asaga isaqaanin laakiin wixiisa waa ognahay ninkiis dagoodii maanta meel geyn lahay qosdhisi lahay waaye fay aas qaba bay qabtaa meesha dagoodii raacaan waa raacaysaa meel ayan ka jirta male cid raabay fay xasan waa nin maan naqaana aabbihiisaan naqaanaa walaalihiisaan naqaanaa asaga naftinkiisaan naqaana inkastoo asaga isaqaanin laakiin wixiisa waa ognahay ninkiis dagoodii maanta meel geyn lahay qosdhisi lahay waaye dardaaran walaaleed waa nugu jiri waxaana fiican ninka walaalkii markaad runta wixiis qabo kuu sheeg waa markii adi aad ku kalsoonaanay soo sidaas ma khayr allah idin siiye khiyaarta waa la qabnaa ee meeshii maanta ciddii reer aabbahayn magaceedii magaskeedii iyo muuqaalkeedii wanaagsanay waa dhex fadhinaa meelaan ugu gudubna ma laha